mahadhooyinka taariikheed ee ku lamaana dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya dhexmaray sanadkii 1977 waxa kamid ahaa dagaalka dhinaca cirka oo si walba oo loo sheego in ay Itoobiyaanku kaga gacan sareeyeen Soomaalida haddana aan la dhayalsan karin sidii ay u dagaalameen ciidamada cirka ee xoogga dalka Soomaaliyeed muddadii dagaalka qadhaadhi u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya waxa aad loo xasuustaa doorkii ciidamada cirka Soomaaliyeed ku lahaayeen dagaalkaasi kuwaasi oo la'aantood aanay jihooyin badan oo dhulka ah xoreeyeen ciidamada dhulku kadib markii duuliyaasha diyaaradaha dagaalku ay garaaceen goobo badan oo ay fadhiyeen ciidamada Itoobiya mid ka mid ah qiisooyinka dagaalka gaar ahaan xagasha dhinaca diyaaradaha dagaalka waxa dad badani ka sheekeeyaan aadna loo xasuustaa diyaaradii bambarka ahayd ee awoodda badnayd ee ka mid ahayd diyaaradaha dagaalka Soomaaliya taasi oo garaacday dhul badan oo Itoobiyaanka laga xoreeyay kadibna ugu dambeyn lagu burburiyay madaarka magaalada Berbera sidee haddaba qisadani u dhacday yaa ka dambeeyay in diyaaradan la burburiyo yaa se geystay weerarka diyaaradaasi lagu burburiyay waqti ay ku sugnayd madaarka runwayga ugu dheeraa waqtigaasi dalka iyo guud ahaan dalal badan oo qaaradda Afrika ah waa saldhigga ciidamada cirka ee madaarka magaalada Berbera waxa dhammaan su'aalahaasi inooga jawaabaya duuliyihii diyaaradaasi waday ee isagu fadhiisiyay madaarka magaalada Berbera waa duuliye dagaal Maxamuud Maxamed Xayd oo loo yaqaano duuliye Xayd mar uu uga warramayay arrintaasi Maxamuud Abdi Cali Ducaale oo kamid ah wariyaashii hore ee BBC Soomaali waxaanu yiri duuliye Xayd sidan waxa aan ka tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya waxa jiray duuliyayaal badan oo xataa qaarkood 10 sano nooga soo horeeyay ciidanka cirka duulimaad tijaabo ah oo culus ayaan ku sameeyay waqtiyadaasi dhinaca waqooyiga waxaan ka duulay magaalada Berbera magaalada Sheekh ayaan ka dulduulay oo waxaan jabiyay xagal 90 digrii ah oo dhinaca Hargeysa ah meel aan u malaynayo in ay tahay magaalada Sabawanaag ayaan ka soo jiireeyay oo ka soo noqday buuraha Naasa Hablood baan ka dul wareegay waxaan ka soo wareegay dhinaca iyo magaalada Bullaxaar waxaan Berbera kaga imid dhinaca xeebta iyada oo aan jihada galbeed ka soo abaaray runwayga madaarka magaalada Berbera waxa uu ahaa runway aad u dheer oo in ka badan 2 kiiloomitir iyo dheeraad ah nasiib darro halkii aan diyaaradaasi maalintaasi dhigay muddo kadib ayaa lagu burburiyay iyada oo ay sababtana lahayd dawladda Ruushku khubaradii Ruushka ahaa ee inala joogay ayaa bixiyay sirtaasi oo sidaasi ayaa lagu duqeeyay laguna bartilmaameedsaday diyaaradaasi bambarka ahayd iyada oo ku sugan madaarka magaalada Berbera duuliye Xayd oo arrintan inooga sii warramaya waxa uu yiri iyaga waa Ruushka ayaa tilmaanta Itoobiyaanka soo siiyay sababtu waxa ay ahayd diyaaradani waxa ay dhaawac weyn u geysatay Itoobiya oo muddadii dagaalku socday waxyeello weyn ay u geysatay Itoobiya dagaalada ay qayb weyn ka qaadatay waxa ay qayb weyn ku lahayd diyaaradeenani caawimadii ciidamada afantariga ee Soomaaliya ee dhulka meelaha laga saari kari waayo ciidamada Itoobiyaanka ay diyaaradani si xun u bamgareynaysay iyada iyo diyaaradihii la midka ahaa oo ay garaacayeen ilaa Baari ilaa saldhiggii ugu weynaa ee Itoobiyaanku ku lahaayeen goday ay diyaaradan iyo kuwii la midka ahaa garaaceen inkasta oo guud ahaan diyaaradaheenu daboolayeen oo ay qayb weyn ka qaateen haddana tani gaar ay ahayd gacanta ay ciidamada cirku bixinayeen aad ay ugu liibaaneen ciidamadeennii dhulkuna inkasta oo ay dadka qaar yiraahdaan ciidanka cirku waa u liitay haddana waxa hubaal ah in aanu liidan ee ay ahaayeen ciidan xooggan oo culus waxa hubaal ah in ciidanka dhulku aanu diyaarado la'aan socdeen markaa Ruushku waxa ay yiraahdeen waa in diyaaradaasi la burburiyaa halkii aan madaarka Berbera ka soo dhigay ayaa lagu soo weeraray oo lagu burburiyay anigu marka aan duulimaadkaasi soo sameeyay tijaabo ayaan ugu kacay oo waxa uu ahaa duulimaad tijaabo ah oo aan ku soo duulay diyaaradda markaa bambooyinkeeda kumaanaan xidhin sababta oo ah marka ay dagaalka galaysa mooyee laguma xidho bambooyinka balse waxa ku jiray shidaal dhammaa 8,000 oo litir rasaas ku xidhnayd ayaa jirtay 4 qori oo darandoori u dhaca ahna qoryaha ay xambaarto diyaaraddaasi laba xagga hore ay kaga yaaleen diyaaradda labana xagga dambe waxaanu cabirkoodu ahaa qoryahaasi 37 milimitir weerarka lagu burburiyay diyaaradan waxa uu ahaa weerar ay soo qaadeen diyaarado dagaal oo Itoobiya leedahay oo inta ay soo wareegeen dhinaca xeebta kaga yimid sidaana ku bamgareeyay oo ku duqeeyay diyaaradda oo fadhida diyaaradaha Itoobiyaanku waxa ay weerarka soo qaadeen iyaga oo joog hoose ku duulaya oo dhinacan galbeed ee xeebta ka soo wareegay masaafada ay soo duuleenna aad ay ugu dheerayd diyaaradahaasi runtii may soo hawaysan kareen in ay madaarkeena diyaaradaha ee Berbera toos u soo duqeeyaan laakiin si dhuumasho ah oo ay ka raad gadanayaan raadaarka ay joog hoose ku soo duuleen oo ay dhinaca xeebta ka soo wareegeen laakiin muhiimadu waxa ay ahayd in ay diyaaradaasi burburiyaan si kasta
oo ay ku qaadanayso iyadii uun baanay sidaas ku waxyeeleeyeen oo ay ku burburiyeen marka laga tago diyaarad kale oo MiG-21 ah oo meel wax yari kaga dhaceen oo aan waxba noqon mooyee taasi uun bay duqeeyeen runtii waynu haysanay qalabka raadaarka ee diyaaradaha lagula socdo oo weliba ragga ka howlgala aad loola yaabay aqoontooda oo adduunku ka yaabay qalabkuna tayo sare lahaa oo casri ah waqtigaasi laakiin diyaaraduhu taba ay u socdaan bay leeyihiin oo ay isaga ilaaliyaan raadaarka marka ay joog hoose ku duulayaan oo cid tababar qabtaa ay wadato jooga gaaban ee duulimaadka ah ayaana ka mid ah waxyaabaha diyaaradaha dagaalku isaga ilaaliyaan raadaarka tusaale ahaan haddii ay maraan wax u dhow 100 mitir ama sidoo kale joog hoose oo buurleyda ah imikaba waad garan kartaa haddii adiga oo moobilkaaga sita aad buurley marto in aanad anteenada helaynin aduu farsamadaasi ay adeegsadeen xeebta ayay soo mareen si degdeg ah ay madaarka diyaaradda oo fadhida u duqeeyeen nasiibkooduna way la heleen diyaaraddaasi rasaas ifisa ah oo xoog weyn ayay ku dhufteen sidaas ayuu yiri duuliye maxamuud xayd isagoo arrintan ka sii hadlayana wuxuu yiri waxa la yaab leh oo yaabkiis ah saldhigga weyn ee madaarka berbere ee ciidamada subaxdaasi nin qaabilsan dhinaca nabadgelyada madaarka ayaa sheegay in aynaan waqtigaasi haysan debdemis madaarka saldhigga ah yaala waxa uu ahaa nin korneyl ah oo asal ahaan ka mid ah dadkeenii cadan ka yimid subaxdii warbixintii garoonka lagu bixiyey waxaa ku jirtay in aanu madaarku haysan wax debdemis ah diyaaradda markii rasaastii xabashidu ku dhacday rasaas ifisa ah ayay ahayd muddo ayay haysanaysaa may qarxin wax bamba ahna kumay dhufan diyaaradda gantaalna kuma dhicin waxaan xasuustaa in markaasi uu diyaaradda saarnaa nin farsamo yaqaan ah oo la odhan jiray cabdiraxmaan aniga ayaa inta aan u soo dhawaaday waxa aan ku idhi cabdiraxmaan oo diyaaraddu way gubanaysaa degdeg uga soo deg qarax loogama baqanaynin oo diyaaradda waxay ka samaysan tahay bir aluminum ah anigu diyaaraddan maalintaas aan duulimaadka tijaabada ah sameeyay waxa aan soo dhigay oo ay ahayd 24 November waxaana weerarka lagu qaaday ee lagu gubay u dhaxaysay ugu badnaan 10 cisho haddii aanay ahaynba muddo 7 ah sidaasi ay diyaaraddaasi ku burburtay oo ku gubatay iyada oo dayac debdemis la'aan ah markaasi uu burburtay weerarka ka sakow sidaas waxa yidhi duuliye xayd oo ka waramayay qisada diyaaraddaasi bambarka ahayd ee Soomaaliya ee Itoobiyaanku ku burburiyeen iyada oo ku sugan madaarka saldhigga ciidamada ee magaalada Berbera iyada oo uu duuliye xayd sheegay in Ruushku ka caawiyay xogta diyaaraddaasi Itoobiyaanka iyo talada ah in la duqeeyo saaxiibayaal mawduucaasina maanta halkaas haynoo jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh